faa'iido ma leedahay inaad mararka qaybtooda aad noqotid qofka damiinka insha Allah muuqaalkan kooban waxaan rabaa inaan kugu sharaxo faa'iidada ay leedahay mararka qaybtood inaad noqotid qofka damiinka oo aadan dadka bicnihii aadan horboodin sometimes yani faa'iidada ay leedahay insha Allah wajir abyad fadlan hadda nagu cusubtay waxaan ka codsanayaa in aad muuqaalka aad like gareysid sidoo kalena kanalka ama bogada ku cusubtay follow ama subscribe aad dahdid aad ayaad ma santay maadaama wax cilmi ku soo kordhino mar walba wax cilmi aan ka sheekayno in cilmiga la taageero maadaama waxyaabaha kala dadku ay aad u taageeraan aad baan kaaga mahadcelinaynaa hadaas asbays insha Allah marka waxaan rabaa inaan ku sheego laba xaalad oo insha Allah aniga soo martay taasna marka adigana ay khibrad ku noqoto oo wax ka faa'iideysatid hadii Ilaahay yiraahdo waxaan xasuustaa hadda ka hor yani maraan tagnay yani waxaanu difaacaynay program wax ka shaqeynay la yiraahdo adigu programyadan lacagaha lagu diro oo yani lacagahan electronic ah programyada lagu diro webka mobile apps-ka kuwaas oo kale oo USD iyo mobile app labadaba leh kuwaas aan ka shaqeynay marka waxaan xasuustaa يعني markaas waxaan joogay yani sababa markaasna waxaan la shaqeynay marka shirkad noocaas oo barnaamijyaas ka shaqeynaysa marka waxaanu aadnay yani central bankiga yani dawladda ayaynu aadnay kadibna marka waxaanu ka difaacaynay programkii iyo ka soo difaacnay yani waxaan u sharaxnay dawladda yani central bankiga sababta faa'iido u leeyahay programkaas sababta ay tahay in loo isticmaalo wax noocaas oo kala marka defense amal ay marayna sida jaamacad marka dhameeysid oo kale yani waa aragtay defense oo professor ku safraysanaya su'aalo badan baa lagu weydiinaya wax lagu dhahayaa kaaba maxka yani wax lagu qiimeynaya waxan aad sheegaysid inaad u diyaarsan tahay in kale marka iyagu waxay noo diyaarsheen dad badan oo maartay khubaro ah oo bankiga dhexe la shaqeeyo oo de maartay wada PhD marka iyagu marka waxay nagu weydiinayeen marka yani waxaan wadna iyo maartay yani wuxuu yahay iyo yani dhibaatada ku sameyn karay waxyaabo noocaas su'aalo noocaas la weydiinay marka waxaan xasuustaa marka yani meel baan fadhinaa marka team baan markaanu teamka waxaan ka ku jiraa يعني defense-ga sameynaya oo shirkadda macnaha ka socda dhanka shirkadda ka socda warka group aanuna marka waxa xasuustaa marka waana markii su'aalaha la weydiiyay marka qof yarna waan ahaa su'aalaha la weydiiyay marka waxyaabada ma ka jawaabnay markii daba marka ayaga wax bay sin weydiiyeen kadib marka waa soo istaagay yani explanation badan oo dheeri ah bixiyay kadib marka waxa weeye explanation-kii aan bixiyay oo meesha macnaha wax ku sharaxay يعني wax fahansan aan iska dhigay amal يعني waxay keentay su'aalo badan oo kale in la weydiiyo ay keentay taana runtii dhibaato keentay oo inay dhahaan macnaha qoladii maxaa waxa dhan ugu furfurtay yani maxaa halka loo gaarsiisay yani waxaan maanaba u socon wixii ahayn baad aad yani wax aan loo socon ayagu ma u socon halkaas marka sometimes marka waa very important inaad noqotid qofka ugu dameysan markaad meel fadhidid yani markaad ama meeting ka qayb galaysid ama shirar ama heshiis aad galaysid sometimes dadka lama horboodo faa'iidooyin badan ay leedahay inaad inta sameyn haddaad iska sugatid oo yani xitaa waxaad fahmaysaa salaana daan oo kale waxaan awoodi karay inaan dhaam noqdo oo aan dhahoday yani maxaa ula jeedaan su'aashaas markaas oo kale marka qofka follow up questions baa la weydiiyaa yani qodobka yani sidee ka wadaan يعني sidaas xawlo jeedaan wax yar bay iyagu rabeen wax aad u fudud bay rabeen salahan waxaas fudud marka si fudud baa looga jawaabi karay يعني su'aalahaas dhan iyo waxa dhan looma baahnaateen marka runtii saasoo kale way marka heshiis galaysid contract galaysid hadaad wixii iska dhaadhicsid in aad ugu tahay qofka meesha ugu fiican waa aqoonta badan yani wixii aad iska dhexboodid waxa kugu dhici karta sometimes in heshiis aan loo baahnayn aad saxidid barnaamijyo aan loo baahnayn aad dhexgashid yani dhibaato marka halka ay kaaga timaado laakiin hadaad istajisid oo mar walba aad questions ku bilowdid يعني wixii waxaan fahansanayna iska dhigtay waxa maxaa ula jeedaa kan maxaad ka wadaan qodobka noocaas markaan galno kana kaamiya naga rabtaan yani qaab noocaas dadka u wareysatid waxa marka ku fuudaanaya in aad wax badan fahantid yani wax badan dhil ka fiican dhilka rabtayna aad heshay maadaama aad ciyaartay qofka daminka laakiin qofka bright-ka ah hadaad iska dhigtid oo horboodid wax badan baa lagu hoosgelin karaa markay dheelal tahay markaad mashaariicyo iyo barnaamijyo aad ka qayb galaysid iyo heshiisyo fiican ba markaad ka qayb galaysid in fact heshiisyo xitaa marka laga tago waxyaabaha caadiga nolosha la xiriira xitaa hadaad ku jirtid iyadana waa saas oo kale weey marka waxaan rajaynayaa in muuqaalkaas uu ku noqday mid informative waa injineer Abyad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.